shirkad Somneda maxaa leeyahay caqabado badan iyo inaan ilaalisiin jecelahay anko meel fiican marin ama isticmaalin oo go'a marka aalad xumaa jiraysa markaas ma oo shirkadahan waxaan ku leeyahay Somtel internetka naga soo hagaajiye habeenay maalin internetka isticmaalayna isticmaalka internetka waa mid saameyn togan iyo mid tamo ku leh nolosha aadmiga sanadihii ugu dambeeyay marka la eego geeyiga Soomaaliya isticmaalka internetka wuxuu ka ahaa mid muhiim ah isla markaana bulshada ay u isticmaalaan inay ku kala gudbiyaan waxyaabahooda kala duwan ee muhiimka ah haddaba muqaalbaahiyaha Risaala TV oo aan la dhex qaadnay qaar kamida bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir ayaa waxa ay nooga warameen sida internetka isticmaalkiisu oo muhiim ugu yahay nolosha sidoo kale waxa ay sheegeen in mararka qaarkood ay la kulmaan tayo xumo internetka ah ay u sababayeen inay soo yihiin shirkadaha bixiya internetka waxayna ugu baaqeen in internetka la tayeeyo isla markaana ay shirkadaha u soo jeediyeen waxaan ahay qof internetka in badan uu howlihiisa ku qabsada faa'iidooyin fara badan ka dhaxla haddii uu marka internetka uu ka maqnaadana dhibaatooyin fara badan kala kulma xagga bulshada xagga xiriirka shaqo ama siyaabo kale ha ahaadaan ama howlaha guud ama tan gaar baa ahayto faa'iidada ugu weyn aan ku qabno waxay tahay anoo kale waxaan ahay qof model ah ama designer ah dad aan isgaranayn aan wadanka aan ku nooleen internetka kale dalabaadkiisa ay ugu soo gudbiyaa sidoo kale anigana wixii markaas aniga sameeyo waxaan ku gudbiyaa internetka kale sidaas ayaan hadafyadeena ku kala gudbisanaa haddii aan internet weyno waxa ugu horeeyo qofkii aan wadanka isku joogteen ayaadan ishaleeleynin howlihii aad isku marka isdhaafsanayseen oo kale aadan diiradda saari karin waa dhibahay magaceerood ma waaye internet isticmaalkiisa wallahi habeen dhafar oo nidgala laakiin internet laantiis ma joogi karo marka muhiim waa internet laantiis hadoo jir leh aniga waxaana ma ogaaleen macnaha internet wuxuu muhiim ku yahay wax dad oo maqan ama dad oo meelaha joogan aan aqoonin macnaha iskala hadlaysin laakiin caadi lila dadku wuxuu ma ogaaleen ma oo والله هذا استعمال سمير قطر كمرة مر إسكجوعة مركا ومركا قعد نص أنا قيسي كلمة كل تقاند ما هون هذا نم سوقت كحو هل هبينا تو معناه استعمال أنا أنا مقدها وملينا يا والله أنا هرت سمني ذا استعمالها شركة سمني ذا محلية هاي عقبة بدن يو إن أنا إلى لسنا جعلها أنكو مال في عمرنا أم استعمالنا نيجوعة مركا aalad xumaa jiraysa markaas ma oo internetka horta faa'iidooyin badan buu leeyahay waa goob wacyigelin waa goob ganacsi waa goob waxbarasho markaan ka hadlayo dhinaciisa positive ka ah mararka qaar way dhacdaa in badan anoo ama koorsa ku jira ama xitaa telecommunicationka laftigeeda waa muhiim adoo qof la hadlaya ama ku muhiim ah ama waalidka oo kale inuu ka go'o marka kale aniga wireless ba isticmaalayo mararka qaar anoo isticmaalayo inuu iga go'o aad ba uga xumaada sidoo kale waxbarashada kale adoo koorsa ka sugi lahaa ama imtixaan ka bixi gari lahaa ama mataqaana cashar qaadan lahaa inuu internetka xumaado way dhacdaa alaaba waa internetka nolosheeda si khaas ah wali maani waan jeclahay because ma ka maarmi karo sama khasaarna uu leeyahay oo de waa wax xun oo macnaha indhaho kale waxbuu u geystaa hadaa isticmaalkiisa badisid khasaarna uu leeyahay faa'iidana uu leeyahay de way iska daawanaysaa waqtiga iska luminaysaa abo way dhacdaa because korontada badanaa xamarka ma tagto laakiin marmaray xumaadaan internetka waxa uu xumaadaa isticmaalka internetka oo ah mid muhiim u ah nolosha ayaa dadkii kala duwanaan la hadlay waxa ay sheegeen in internet la'aantiis mararka qaarkood laga yaabo in caqabadooyin kala duwan ay la kulmaan maadaama howlo muhiim u ah iyagu internetka ay ku qabsadaan maxamed axmed soomane Risaala TV Muqdisho